salaam marka waxa weeyaan qofka bini aadanka ah waa inuu wax isku dayo oo xal horey loo helay oo dad hore ka fikireen waa inuu helo oo raadiyo dib hore oo la xaliyay xalkiisii xal jira qofku waa inuu raadiyo ama waa inuu asugu hindiso oo xalka raadiyo uu soo helo marka intaas waxbaan raadiyaa waxbaan xaliyaa isku dayaa inaan xaliyo midii ugu dambeysay hadda xalinahay kuwa badan aan xalinahay hadda xalimihii faraha badnaa ayaan xaliyay waxaa ka mid ah maanta arrin aan gadaal ka sheegi doono waxyaalo badan waxay ugu kaliftaa maadaama aanan arag dad aan uga dayday oo Soomaaliya iiga horeeya inaan anigu aan wixii bilaabo ani la igu daydo marka waxyaalo badan baan yaan xalistaa oo maaragtay shida dadkoo dhan u wada siman yihiin baa isku daya anigu inaan tayda gooni u xalisto waxyaalaha qaarkood aad la yaabayso ku niyad jebinaya marka qaarkood waxa weeyaan qaran dhan oo waxaad arkaysaa isku wada mid ah oo mid wax xalinaya iyo mid wax raadinaya inay wax xaleeyaan maahee qof wax raadinaya qaran dhan oo laga waayinhayo ama qof wax hindisa maxaa kulligood isu wada ekeysay dadku waa is wada raacaan kulli qof anigoo kala ma aho dadka ka duwan oo gooni hawshiisa u wata maahee ummad kaloo dhan waa isku dayataa ama xumaan ba isaga wada dadaan oo xumaan baa la isku raacaa ama waxtar baa la isku raacaa hadda Soomaaliya oo dhan wax qabad la'aan iyo horumar la'aan baa la isku wada raacay Afrika ba ku dar Afrika oo dhan ka dhig Mareykanka iyo reer galbeedku wax isku raaceen inay wax xaliyaan marka arrintan u dambaysa wax weeyaan waan ogaa ciladan inay jirto xal inay u baahnayd waan ogaa waxaan kala ogaa xalkii in qolo mar hore keentay waan ogaa waxa kaliya hadii aad cilad la kulantid ama ha yaraato ama ha weynaato waxa isku daydaa dad hore qofka kaligiis adduunka qof kaste dhibka gooni uma haysto bini aadan oo dhan isku dhib baa wada haysta marka qofka shakhsiga wax gooni ku ah kaligiis ma jiro dad ba kaaga horeeyay wax kasta oo kugu dhaca wax kasta oo ku soo mara wax kasta oo kula soo dirista qof ba kaaga horeeyay haba lagaaga horeeyay dadka qaar baa xaliyay dhibkaaga wax kasta oo jira qof baa xaliyay hore loo xaliyay marka adiga waxa loo baahan yahay inaad heshid xalkii hore loo xaliyay wax adiga qofka bini aadanka wax ku cusub oo asaga u horeeyo am bini aadan hore ugu dhicin ma helayo bini aadan horey waxaan ugu dhicin qof bini aadan aan soo marin qofka bini aadanka kuma dhacayo qof bay hore ugu dhacday malaayiin bay ku dhacday malaayiin bay ku dhacaysaa marka dadkii qaar ba xal raadiyay oo yiri hal raadiyo wixii dhibka in la fariisto ma aha meel oo kugu helo waa inaad xalki raadisid waa inaad xal u raadisid baahida jirta waa inaad xal u raadisid baahi kasta xal bay leedahay marka hadda bini aadan oo dhan waxa weeyaan reer galbeedkan joognaa waxaan leenahay hadda ka soo qaad dadkoo dhan waxaa wada haysta Soomaali hadii la yahay Muslim hadii la yahay waxa wada haysta cilad ah musqusha markay galaan waa in ay caagad biyo hore u dhaansadaan caagad biyo inay hore u dhaansadaan ummadda dhan baa ka wada siman
soomaali oo dhan baa ka wada siman, muslim oo dhan baa ka wada siman in caagad biyaah qaar baa waxay la imaanahayaan hadda kasoo qaad mid baa wuxuu is yidhi xalli dhibkan jira xalli, qofba si wax u xalliyaa, qofba si buu wax u xalliyaa. marka ciladii jidhay nin baa wuxuu soo qaatay oo yidhi ku xalli geedan, inuu geedan biyo ku shubto oo tan uu ku istijoodo xal buu u arka. tan lafteeda cillado badan bay leedahay. waa caag marka koowaad, waa qaab daran tahay, waa afweyn tahay, waxa weeyaan caagga waa jilicsan yahay, biyo badan hadday galaan waxa weeyaan culayska biyaha yaa dhinaca hoos u riixaya, marka qaab daray noqonaysaa. qof baa xal u raadiyey, tanuu xal ka dhigtay, tanuu helay xal buu ka dhigtay, tanuu taas u dhaafi waayey. anaa ku xigsadayoo xal waxaan u raadiyey kirli baan xal u raadiyey. xalkii wuxuu la noqday kirli. waxa weeyaan caag ma ah, waa bir. caagga haddii biyo kulul aad ku isticmaashid caaggii waa shiilmayaa. qeyb kamidana waxa weeyaan kimikadii laga sameeyey, wuxuu laga sameeyey wuu ku milmahayaan biyaha. marka anigu xal baan raadiyey, waxaa midaan biyaha si kastoo u kulul yihiin aan ku milmaynin raadi. kanaa raadiyey, kanaa helay muddo, kanaa maxaa la dhahaa kanaa soo helay. marka anigu waxaan ka caqli bato ka fiicnaaday oo ka roonaaday kii caagga guduudan watay oo jilicsan, kaasaan ka roonaaday. wax kaloo kasii roona inay jirin waa ogaa. marka waxa weeye wax kaloo ka sahlan baa jira, wax ka sahlan oo ka fudud baa jira. marka anigu waxay noqonaysaa haddii dadkii hore u xallin waayeen muslimka baahidiisii ama soomaalida baahideedii hadday xallin waayeen, aniga danta waxay ugu kalifaysaa inaan anigu xalliyo, tayda inaan xalliyo, oo kadib wixii igu dayanahayna ay igu daydaan hadda kadib marka la arko tanoo kale. marka wuxuu ha yaraadeen, shiddadu ha yaraato ama ha weynaato, qofka waa inuu wax xalliyaa, waa inuu isku daya inuu wax xalliyo. dhib jira waa inuu qofku isku dayo inuu xalliyo. marka baahi badan hadda qofka masaajidada oo dhan haddaa aragtid waa wax lagu khasban yahay daruuriya. qofka masaajidka markuu tago inuu biyaha isticmaalo, kulli waxay la wada ordayaan caagada noocaana. kulli caqligooda wuxuu wada siiyey inay ku gaabsadaan caagada noocaana. kulli mid kasta 100 qof 1000 qof waxaa arkaysa caagad noocaana la ordaya. bal qaar may duwanaadaan oo maskaxdooda may ka duwanaadaan oo wax kale may la yimaadaan. dadku inuu isku si noqdo oo isku si isu shabaho oo isku wax ay ku wada qancaan oo la isu wada ekaado oo tuuto la wada gashado ma fiicna. dadku inay kala duwanaadaan, qaarba waa inay wax yimaadaan, midbaa midka kale ka xal fiicnaanaya. kii xalka xumaa waxaa loo baahan yahay qofka xalka fiican inuu yimaado oo wixii xalliyo. marka mid aanan Soomaali ugu arag horay, guryahooda aanan ugu arag, masaajidadoodan aanan ugu arag, oo baahi ay u qabaan baan maanta xalliyey. maanta qaabka u xalliyaa waxay tahay anigu Soomaali, aniga marka koowaad anaa dantayda anaa xallisanaya oo waxa ula jeeda anigu inaan xallisto. marka videoga yaan dheeraynin. ala kulli xaal waxa weeyaan caagadii noocaan ahayd waan ka maarmay. tii kale oo noocaan ahaydna ayadana waa ka maarmay. waxaan oo dhan uma baahnayo inay iigu jiraan musqulaha iyo guryaha iiguma jiraan, uma baahni. marka waa wax fudud oo kuu fududaynaya hawshaadii, aan kugu cuslaynayn inaad heshid wax kasta. wax kuu fududaynaya, baahi kasta oo aad qabtid waa in aad heshid wax kuu fududaynaya oo kuu sahlahaya. baahidaas mid weyn bay noqon kartaa, mid yar bay noqon kartaa. nooc kasta maaha inay wax weyn noqoto ama meel weyn. waxa yaryar intay isbiiriyaan bay wax weyn soo baxayaan hadhow. waxyaalo yaryar haddaa ku guulaysatid waxaa laga hadhow 99 waxoo yaryar haddaa ku guulaysatid kan 100aad wax weyn buu noqonayaa. marka aniga hadda waxa weeyaan maanta Soomaali waxaysan horay u isticmaalin baan hadda yaan isticmaalahayaa, yaan helay. Soomaali sababta u leeyahay hore uma isticmaalin waxa weeyaan meelaha joogaan baa lagu arki lahaa.
ganacsiyadooda lagu arki lahaa, guryahooda lagu arki lahaa, ilaa waa isku wada daydaana. Soomaalida waa isku wada dayataa, ummaddu waa isku dayataa. marka hal reera waxaad ku aragtid, reeraha kaloo dhanna way wada haystaan. waa la isku daydaa. marka mid aan horey Soomaali ugu arag oo masaajidadoodana aan ugu arag, meelna aan ugu arag ba hadda anigu aan gooni u xaliyey. tan weeye soo socota hadda aynu tusahayaa waxay tahay waxa weeyaan waa tanaa oo musqushii weeye. marka tan si aan ugu baahan, geedan si dambe aan ugu baahan waxa weeyaan si dambe aan ugu baahan waa tanaa, waa ka maarmay. uma baahanaysid waa tanaa. geedkaan aan saaro si biyaha aysan u culusaan. waa tanaa. biyo aad soo shubatid uma baahnid, biyo aad gaari weydid uma baahnid, adigoo wasakhaysan inaad kacdid uma baahnid. biyo kugu yaraada ma jiraan, biyo kugu yaraanahaya ma jiraan. ukaasaa biyo kugu yaraanahaya. biyo markaad soo shubtid dhulka ku daadaata ama maxaa la dhahaa meelaha ku daadaata, dhulka oo dhan kaa qooya, waxaasoo dhan uma baahni. waa kanaa wixii oo dhan biyaha inta kugu filan baad isticmaalaysaa. inta kalena waad maaragta waad iska xiraysaa. biyo aad khasaarinaysaa ma laha. marka halkaan aad ka kontrooleysaa, waad yaraynaysaa, waa kanaa, waa badinaysaa. marka ummaddu ha fakadho. waxyaalo adigu aa xalisay, maxaa la dhahaa haddaad xalisid ummadda, haddaa wax u xalisid way kaa faa'iidahayaan. caqli baa lagaa faa'iidahaya iyo fakar. qaybtan xaliya maaha, qaybta kale xaliya. wax cusub ha laydinka faa'iido. ha noqonina dhagaxyo soo taagtaagan iyo dad aan khayr lahayn oo tiirar ah oo aan waxa laga faa'iidahayo adduun iyo aakharo aan jirin. waxaan xumaan iyo xasad iyo qashinnimo iyo xalays iyo isdabamaris iyo qashin waxaan ahayn dad laga faa'iido noqda. waxaas qashinka iyo qurunka iyo buuqaas iyo qayladaas, wax caqligeena ilaah baa idin siiya. caqligeena isticmaala, wax keena, dadka bulshada wax kusoo kordhiya. idinku naftiina wax kusoo kordhiya. naftiina markaa wax kusoo kordhisaan, bulshadana waa idinkaga dayanaysaa. hadda waad arki doontaa bahashaan aan sameeyey haddeer. maxaa la dhahaa dad baa hore u xaliyey. dadkii anigu aan raadiyey xalkii waxweyn. xalkan waxaan u xaliyey dadka Soomaalida ah. waa arki doontaa dad badan baa iiga dayan doona. waxaa laga yaabaa masaajidada inay geliyaan, waxaa laga yaabaa guryahooda inay gashadaan. waxa weeyaan anigu ayagan yaan tusay. marka waad arki doontaa. hadda kahor guriga ay ku jiraan hore umaada arag oo Soomaaliyeed, laakiin hadda waad arki doontaa. waa la isku dayan doonaa, anaa laygu dayan doonaa. waxay noqonaysaa wax qof kasta uu isticmaala hadda oo dadkao dhan ay wada arkaan. marka intaasi kusoo gabagabaynayaa. khayr baan idin rajeynaya. waxaana hel idinka faa'iido. share, subscribe, like.